السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصح صاحبي نولشو aad ayay u adag tahay waliba kolka tahay qof dhalinyaro ah lehna ahdaaf fara badan rabana inuu mid uga dhaweeyo ahdaaftaasi se waxa jiro arin ay qasab tahay inaynu ka dhigano saad si aan ahdaaftaas u gaarno wad wada taqaan qisada caanka ee Nabii Muusa iyo Fircoon dhexmartay kolkii ay Fircoon iyo saaxiibadiisa ay ciirsanayeen Nabii Muusa iyo kooxdiisa Nabii Muusa iyo kooxdiisa waxa hortooda ahaaday bad gadaashoodana waxa ahaaday cadawgii Allah subhanahu wa ta'ala kolka ay kooxdii la socotay Nabii Muusa waxay ku yiraahdeen qala asxaabu Muusa inna la mudrikuun maanta waxaan nahay kuwa la haleelayo oo la qabanayo waxa uu jawaabay iska daa in la qabtay waxa la jirkayga ahaaday Rabbi subhanahu wa ta'ala isaga ayaana nahanuuninayo oo jid inoo furayo se kolkaas Nabii Muusa waa sax uu ku kalsoonaa Allah subhanahu wa ta'ala sama uusan filaynin in badda looga dhigi doono jid sidaad wada ogtiin ba Nabii Yuusuf waxa Masar la geeyay isagoo adoon ah oo wax uu galay magaalada isagoo adoon ah waxaana laga soo saaray isagoo oo boqor ah Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa uu dhashtay kuna koray nolol adag oo la'aan ah aaba la'aan ah awow la'aan ah silic iyo rafaad fara badan ayuu maray si Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu ku tilmaamay inuu yahay koonka kuwa saara midka ugu akhlaaqda iyo dabciga wanaagsan Nabii Ibrahim sidoo kale waxa lagu amray inuu gowraco wiilkiisa isagoo shaki iyo labalaab iyo luuq galin ayuu xukunkii Allah subhanahu wa ta'ala u soo jeediyay raacay dhammaan qisooyinkan aynu wada arkeyno waxay wada wadaagaan hal hadaf oo nagala rabo hadii aynu nahay dhalinyaro inaynu qaadno kaasoo ah inaan la imaano tala saar dhab ah kolka aynu fiirno aayadaha quraanka kariimkana waxaynu ka heli karnaa aayado tirabeela oo ka hadlaya tala saarashada sida wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'miniin wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minuun wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh subhanahu sallallahu alayhi wasallam waxa lagu wariyay xadiis uu ku leeyahay hadii aad tala saaran laheedeen Allah subhanahu wa ta'ala waliba tala saarasho dhab ah wuxuu idin irsaaqi lahaa sida uu irsaaqo shimbiraha waayo shimbirku waa uu kala subaxi isagoo baahan wuxuuna soo noqdaa isagoo dharagsan waxa la yiraahdaa shimbirtu iskuma halaysa laanta ay ku taagan tahay ee waxay isku halaysaa baalasheeda adiguna saaxiib acmaasha iyo ahdaafta aad leedahay isku haleynin ee Allah subhanahu wa ta'ala tala saarashadiisa ka dhigo baalashaada Soomaaliduna waa halkii ay ka tiraahdo ragta shaday Rabbi subhanahu wa ta'ala na tala saartay cirkan waa ay toli karaan balanteenu waa inaan ahdaaf dagsano ahdaaftaasina sida ugu wacan aan u qorsheeno waliba sida ugu wacan aan u la falgalno natiijadan aan Rabbi subhanahu wa ta'ala u deyno wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh